أنا هويانا gabadhayd way maqanta ninka arko oo muslim iyo gaalbo hay keeno meydkeedii nolol wixii lagu hayo ninka arko waa gabadhayda ma hay marka aniga gabadhayda jaamacada akhrisanaysay jaamacada akhrisaan ku dhahay iska dhaaf businesskan hooyo shaqadii iyo jaamacadu waan isku wadi ay dhahday waxaan soo qaatay kootigeedo dhiigle kabaheedii yaan ka yoolay meel store ida iska lahayd oo ani aan arkinaan la igeey meeshaasaan ka soo qaaday dawladii aan gacanta u geliyay ma haddii la arko yaday nooshii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقايا قيمها مضن هذا نغلس عطا ميلو بجوكتان وان سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كعم فرنكو هذا هل كان نغلس عطان ويان كينا نوفشول فضلنا ديو أتاهي مركو هوريسو صوبقود فضلنا يلون إنا سبسكرايب سارتا سيدا أكسنتي هم معلمهان وحا كصوبتي واتنغ كينا غارهان مغالada نيروبي توغودا afduubeysa gabdhaha Soomaaliyeed sida ogsoon dihiim isla weegan gabdha badan ayaa la waayay sidaas awgeed halkan waxaan kaga muuqdo maamo hooyo Soomaaliyeed oo dhashay gabadha ahayd Xafsa Cabdi gabadhaas oo ahayd mid la afduubay iyadoo dukaankeeda soo xiranayso halkaas nimigi dambe laga soo muujiyay in gacmaha iyo wajiga iyadoo laga leeyahay lacag loo haystaa haddaba maamtan oo caawinaysa ayaa halkan codkeeda dhibinahaysa waxay leedahay gabadhayda waxay iska ahayd gabar iska jaamacad akhrisanaysa iyo gabar iska business haysta wax badan oo arintaas ka og ayaa halkan insha Allah aan ka dhageysan doonaa wixii ay nala wadaagta fadlan videoga ilaa inaad subscribe dhahdo شيء قري هذا من قدام بس شقة بدن بيكسر شقيسي لكن من هذا يقدم بيسي بير برا كتالو يجرتي ماشي هسيك شقينيسي أنا قري بيجوا مقنات وحيجوا سحكتي قبل هذه نيروبي على الود لي أو لو أفضوبتي وعليك يعني سبر كذي marka gabadhaydii waxaan rabaa wixii codkeygii hadalkeyga garanayo inuu gabadhaas meesha ku arkaba waa la raadinayo dawladdu way mahadsan tahay garab ay siisay way raadinaysaa anna hooyaanahay gabadhayd way maqanta ninka arko oo muslim iyo gaalbo hay keeno meydkeedii nolol wixii lagu hayo ninka arko waa gabadhayda ma hay marka sida ogsoon tihiin uur wax dhalay dadka la mid ma ahan waa hooyo Soomaaliyeed sida ogsoon tihiin waa arka haystaan shucuurta ka muuqato wallahi billahi arintii waa arin laga xumaada runtii hadii aan ahnay Soomaali waxa loo baahan yahay in aan isgarb istaagna sifa aan uga hortagno dhibaatooyinkan soo badanahaya iyo gabdhaheena markasta duruurka lagu dilaayo ee la afduubayo hadii aan ahna Soomaali markasta waa inaan ka midowna arintaas oo banaan baxnayno meel walba joogno Kenya hooyada Soomaaliyeed arrimo badan ayaa ka dhawaajin haysa dawladana caawin ayaa weydiisan haysa halkan hadana waxaan anigana ugu baaqahayaa Soomaalida meel walba joogan hadii aan ahna Soomaali runtii waxaan ahna dad isjecel markii ay dhibaato jirta oo gacmaha isqabsada Soomaalinimo runtii waa arin annaka adana aad noogu qaalisan markii idanta guud la dhaha hadii aan Soomaalida degan Kenya Nairobi qaasatan dadkaas waxaan leeyahay arintan ha laga banaan baxayo si degdeg ah gabadhaas maamta Soomaaliyeed oo san u dhibaataysan gabadhan ha loo soo qabto meel kasta joogto meyd iyo nolol hooyadan halkan ay ka caawinaysaa dhibkaasta u joodin waan isku wadi ay dhahday waxaan soo qaatay kootigeedo dhiigle kabaheedii yaan ka yoolay meel store ida iska lahayd oo ani aan arkinaan la igeey meeshaasaan ka soo qaaday dawladii aan gacanta u geliyay ma haddii la arko yaday nooshii haday dhimataba in waxaan rabaa la ii keeno wixii arko gaal iyo muslim qofkii arko Soomaaliya u joodin arintan waa arin ku soo badan haysa waa arin ugu cusub hadii aan Soomaalida degta Kenya fadlan arintan waa in loo istaaga waxaan ka codsanaynaa dawladda insha Allah si degdeg in ay arintan tilaabo ugu qaado inaan ku kulmi doono video kale xiiso leh fadlan videogan dadka ku cusub tahay subscribe saar dhan si qaybso walaalaha Soomaali meel joogan welcome